إنا لله وإنا إليه راجعون أرن الله يا أصحابي أركمان أنت أدونك صارت أنت أنا أركي مسلين والله هو الصومالية والله بعرور دش الله بدا عرور حلا دش حلا إسلا حلا مت كمت عنت هل عنق عنت kulan wacan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa barteena YouTube-ka ee Fagaare Entertainment waxaan halkan idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee baraha bulshada laga hadalhayo intaan gudagelin muuqaalkeena subscribe saar YouTube-keena kadibna furo gambaleelka sidoo kale la garay muuqaalka si uu dad badan u gaaro waa hagaag waa mid kamid ah dhacdooyinkii igu naxdinta badnayd ee aan maqlo sanadkii dhamaaday ee 2021 kadib markii hooyo dhashay 2 caruur ah ay cuntay mid kamida hooyadan ayaa saacado ka hor dhashay ama umushay labadan wiil waxaana la sheegay in ay mataana ahaayeen subxaanallah lama yaqaan waxa ku kalifay ama sababta ku dhalisay hooyadan in ay wiilkeeda cunto dhacdadan ayaa ka dhacday xaafadda Kaawagoday ee degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir waxaana la ogeyn in baahi ay ku qasabtay hooyadan inay tallaabadaasi qaado iyo in kale dadka degmadaasi ku nool ayaa cabsi weyn ay soo food saartay markii ay maqleen dhacdadan xanuunka badan ciidamada booliiska ayaa xiray hooyadan waxaana la weydiinayaa su'aalo ku saabsan sababta ay u cuntay wiil umul ah oo ay dhashay haddii uu muuqaalkan ku soo gaaray daawade sheer garay oo la wadaag saaxiibadaada waa dhacdo aad u xanuun badan إنا لله وإنا إليه راجعون أرن الله يا أصحابي أركمان أنت أدونك صارت أنت أنا أركي مسلين والله هو الصومالية والله بعرور دش الله بدا عرور حلا دش حلا إسلا حلا مت كمت عنت هل عنق عنت إنا لله وإنا إليه راجعون مت كمت دعدوينك يا كبرنا ودعضي يا بدن ما صومالية oo dhawaan umushay dhashay 2 wiil oo mataana ah ayaa mid kamid ah way cuntay sida la sheegayo sida muuqaalkan aad ka arkaysaan maamadan 2 wiil ay dhashay mid kamid ah ay cuntay waa dhacdo yaab badan xanuun badan dadka deegaanka ay aad u hadalhayaan magaalada Muqdisho degmada Dharkeenley xaafadda Kaawagoday ay qisadaan walaal muuqaalkan hadduu ku soo gaaray sheer dheh oo gaarsii qof walba oo Soomaaliyeed qof walba magaalada Muqdisho joogo gaarsii si xaaladan halista ah iskaga ilaaliyo maamadan baxsatay oo wiilkeeda cuntay oo magaalada Muqdisho ku dhex jirto oo iskaga ilaaliyo dadka Dharkeenley cabsi badan ay qabaan dadka reer Muqdisho cabsi badan ay qabaan maamadan wiilkeeda oo umul ah ay xalay cuntay halka midkii kale laga badbaadiyay way baxsatay hadda muuqaalkan gaarsii maamadan waxa la sheegay inay ahayd juudaan maamadan juudaanay ahayd bal iska ilaali dadkana ka ilaali oo ha ka baqaylin muuqaalkan ina gaarsiiso qof walba jooga Muqdisho